halkani waa xaafada Siisi ee degmada Kaaraan caadiyan dhaqdhaqaaqyada bulshada waxay kala siman tahay xaafadaha ku yaala gobolka Banaadir laakiin kolka ay tahay xilliyada habeenkii lamid ma aha xaafadaha kale taas oo ay ugu wacan tahay ruux aan la arag oo jirdil u geysta dumarka ku nool xaafadaasi Maryam waa gabar 11 jir ah dhaawac ayaa ka muuqda wajigeeda kaas oo u geystay qof aan la arkaynin waxaana uu u adeegsaday dhagax oo uga dhuftay wajiga Maryam waxay iiga waramaysaa bal sida ay wax u dhaceen dhagax kuugu dhuftay haye adiga intee mareysay irida tagnaa tilmaamaha ay dadka bixinayaan waxa kamid ah in ninkaani aanu ahayn ruux dhacama kufsi u geysta dadka waxaana si gaar ah u bartilmaameystaa dumarka isagoo aanan u kala saarin yar iyo weyn wuxuuna ka dhibaateeyaa wajiga oo kaliya marka laba tihiin ma ku taabanayo marka saddex tihiin ma ku taabana laakiin wuxuu ku taabanaa marka kaliya taho kale wada marka uga soo dhacdo kan luuqo kaaga soo baxa xijaabko jakaasina markaas marka fiirsidna wuu ku fiiraa ninkaas kule waa nin oo si aad dadka u dilo wali wuxuu beegsadaa haweenka rag oo kale ma taabto marka wadada soo gasho wadada kaaga hor imaanayo xijaab gadaal jaka siinayo mar alla markuu xijaab gadaal jaka siiyo gadaal u jeesatid inuu feeska naga hadlaynayo tirka 10 gabdhood oo feeska ka hadlayay khaasatan caruurta yareedna sidoo kale to gabdhaha feeska ku dilaya dibku waxa kamid ah oo habeen meel luuq marayo ayuu gafuurka iga jibshay sifooyinkani ninkani kolka ay dadku ku sheegayaan waxa uu ku sawirma hab dhaqanka dagaalka ee mararka qaarkii uu jinku la galo aadanaha bal aynu aragno tilmaamaha ay ka bixinayaan sida uu eg yahay qofkani wallahi qof waaladna ma ahan qof miirkeeda qabtana ma ahan laakiin waxaan ku tilmaamo oo garanayno ma wal qiyaasi kara ma ahano ninku waxa nin waa nin gacmo dheer wuxuu yahay jini in si wax lagu tilmaami karo ma sheegi karo wallahi laakiin nin bili aadan ma ku tilmaami karna oo maleena kule wuxuu yahay ilaahay ku cilmi la'aan ma aqaani laakiin waa sidan u maleena nin jini inuu yaan ku tilmaamo والله جينا كم تلمامي كره بالآذان كم تلمامي كره قف قف لي قارن مهم بمر الله مركو جوك ودفتني دول عير ما بقتقانيد بهرو كاغا رورايا xaaladahani waa kuwa ka dhaca meelo badan oo dunida kamid ah laakiin waxay kala halis badan yihiin kolka uu kula dagaalamayo ruux aadan arkarin oo ku dhibaateynaya haba yaraatay aadan ka bixi karin tilmaamo cad Foos Cabdullaahi Nuur Somali News TV Muqdisho